wararkii ugu dambeeyay madaafiic lagu garaacay magaalada Muqdisho iyo qasaaraha uu geystay ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad soo follow gareyso sidoo kale tan muuqaalkan aad like gareyso kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay tiro madaafiic oo saaka lagu garaacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho. wararkan hubiyaasha loo adeegsaday ayaa waxaa lagu beegsaday degmooyinka kala ah warta nabadda xamar jajab iyo waabari oo ku yaala bartamaha caasimadda magaalada Muqdisho. wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in madaafiicdan ay geysteen qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ka mid ah dadka ay waxyeelada soo gaartay qoysas deganaa degmada waabari gaar ahaan agagaarka isgooska Ototo kadib markii uu ku dhacay mid ka mid ah hubiyaasha lagu garaacay magaalada Muqdisho. wararka ayaa sheegaya in guriga uu ku dhacay madfaca uu ku dhintay macallin dugsi quraan oo lagu magacaabi jiray Macallin Aweys iyo gabadhiisa Xaliimo Macallin. sidoo kale waxaa ku dhaawacmay hooyada qoysaska oo lagu magacaabo Naciimo Maxamed Cabdi gabar yar oo 6 jir ah laguna magacaabo Xaliimo Macallin Aweys Maadey, Isra Macallin Aweys iyo Maxamed Macallin Aweys Maadey. xaaladda ayaa hadda mid degan mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka oo ku aadan weerarka hubiyaasha ee maanta ka dhacay gudaha caasimadda. bishii hore ayay ahayd markii sidaan oo kale magaalada Muqdisho lagu garaacay madaafiic inkastoo laamaha amniga ay soo qabteen hub iyo raggii ku eedeysanaa weerarkaasi. si kastaba muddooyinkii u dambeeyay Al-Shabaab ayaa dhowr weerar oo kala duwan ka fulisay gudaha caasimadda oo ay dowladda dhigtay ciidamo suga amniga.